warbixinada dhanka Soomaaliya haddii aynu isla eegno waxaad ku maqli doontaan ciidamada dowladda oo mar kale la wareegay deegaano ka tirsan Shabeellaha Dhexe. waxaa sidoo kale idinkugu soo gudbin doonaa ra-iisul wasaare xamse oo ku baaqay in loo gurmado dadka reer hiiraan ee ku jira dagaalka. waxaa sidoo kale aanu soo gudbin doonaa wadahadaladii u dhexeeyay Etoobiya iyo kooxda Tigreega oo mar kale furmaya. sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo ogolaatay heshiiskii shidaalka ee shirkadda Coastline Exploration. warbixinadaas iyo warbixino kale ayaanu isla milicsanaynaa. waxaanu ku horeynaynaa dagaalka iyo gurmadka loo fidinayo dadka jiidda hore kaga jira dagaalka ka dhanka al-shabaab. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan oo ay wehelinayaan xildhibaan Cabdiraxmaan Gacal, gudoomiyaha degmada Raaga Ceele Konreel Masdile iyo sidoo kale saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin kale ayaa gaaray tuulooyinka Geefo, Jabada Carbeed, Biyo Madoobe, Dhalow, Gowraar, Gooldhaabo iyo sidoo kale Imaam Gowrac oo dhammaantood hoostaga degmada Raaga Ceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe. haddaba tuulooyinkan ayaa waxaa la gaaray ama la wareegay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ciidamada deegaanka oo kaashanaya kadib markii ay isaga baxeen al-shabaab. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa bulshada ku nool tuulooyinka u sheegay in laga saaray al-shabaab islamarkaana looga baahan yahay in ay la shaqeeyaan ciidamada iyo maamulka. sidoo kale gudoomiyaha ayaa u ballan qaaday in qofkii soo sheegay al-shabaab meelaha ay ku sugan yihiin xubnaha ka tirsan ururka al-shabaab la siin doono abaalmarino dhalinyarada laga doonaya inay iska dulqaataan dhibaatada al-shabaab ay ku hayso dadka deegaankana ay si weyn uga hortagaan. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ku sugan magaalada Beledweyne ayaa ka hadlay dagaalada ka socda gobolka Hiiraan iyo sidoo kale dadka reer Hiiraan qaabka ay isku difaacayaan. waxa uu sheegay ra-iisul wasaaraha in bulshada ku nool gobolka Hiiraan ay yihiin kuwo ku dhiiraday inay iska celiyaan al-shabaab oo uu sheegay inay dhibaato fara badan ku hayeen. waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in dadka Soomaaliyeed ee ku nool dowlad goboleedyada ka jira dalka oo ay ka mid tahay Somaliland looga baahan yahay inay si degdeg ah uga qayb qaataan uguna soo gurmadaan dadka reer Hiiraan islamarkaana kala qayb galaan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab. hadalka ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ku soo aadaya xilli weli qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ay ka socdaan dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo sidoo kale dadka deegaanka oo kaashanaya iyo sidoo kale al-shabaab oo laga hortegayo. isla dhanka wadahadalada ayaynu dhexda kaga jirnaaye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya waxa uu magacaabay gudoomiyayaasha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir iyo sidoo kale maxkamadda gobolka Banaadir kadib soo jeedin ka timid gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka mudane Baashe Yuusuf Axmed. madaxweynaha ayaa xilka gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir waxa uu magacaabay garyaqaan Saciid Cali Maxamed oo ku takhasusay shareecada iyo qaanuunka. sidoo kale waxa uu gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir u magacaabay garyaqaan Saalax Cali Maxamuud. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kula dardaarmay gudoomiyayaasha uu u magacaabay in ay ka shaqeeyaan sareynta sharciga iyo xalinta cabashooyinka cadaalad darrada ee ka imaanaya muwaadiniinta Soomaaliyeed. xeerkan madaxweyne oo ku saleysan sharciga nidaamka garsoorka lambar 3 soona baxay 12 Juun 1962 ayaa dhaqangalay kadib faafinta rasmiga ee maanta oo ku beegan ama shalay ku beegneed 20 bisha Oktoobar. dhinaca kalena waxaa jirtay arin saacadihiinu kasoo gudubnay si aada loo hadalhayay oona ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo ogolaaday heshiiska shidaalka ee la galay shirkadda Coastline. dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in ogolaatay heshiisyadii wadaagga wax soo saarka shidaalka oo u dhexeeyay dowladda Soomaaliya iyo shirkadda Coastline Exploration kadib markii dib loo saxay qodobadii ay dowladda Soomaaliya tabashada ka muujisay bishii February 2022 xilligaasi oo dowladda Soomaaliya ku gacan saartay heshiiska lala galay shirkadda Coastline Exploration. dowladda Soomaaliya iyo haatan waxay sheegtay in dib u saxid lagu sameeyay ilaa 5 qodob oo ka mid ah heshiiskan iyadoo la adeegsanayo garyaqaanka guud ee dowladda iyo weliba khubaro kale oo aqoon u leh heshiisyada noocyadan oo kale. waxaana lagu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya waxa uu soo dhaweeyay toosinta iyo dhamaystirka heshiisyada wadaagga ee wax soo saarka shidaalka waxaana uu tilmaamay ahmiyadda ay u leedahay kobaca dhaqaalaha iyo sida ay fursad ugu tahay in dadka Soomaaliyeed ay ka baxaan saboolnimada macluusha iyo dhibaatooyinka ay la dala dhacayaan. dadka Soomaaliyeed waxay la dala dhacayaan duruufo dhaqaale oo adag taasoo sanad kasta aad looga dayriyo in sidoo kalena u baahan inaynu u gurmadno taageero caalamina loo fidiyo taasoo si aan ugu gudubno waa inaan la soo baxnaa kheyraadkeena horumarinkeena dhaqaalaha iyo sidoo kale dakhliga dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed buu yiri Xasan Sheekh Maxamuud. munaasabada toosinta iyo dhamaystirka heshiisyadan waxaa goobjoog ka ahaa
mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga, wasiirka batroolka iyo macdanta, wasiir dowlaha wasaaradda batroolka iyo macdanta, ergeyga gaarka ee madaxweynaha iyo arrimaha ganacsiga caalamiga, mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda batroolka soomaaliya iyo maamulka shirkadda Constelline Exploration. qeybihii ugu dambeeyay aynu soo gaarnay. dhanka kale aynu eegno wadahadaladii u dhexeeyey Etoobiya iyo Tigreega, heerka ay marayaan iminka. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Etoobiya ayaa sheegay in ururka midooda Afrika uu qorsheeyey in wadahadalada u dhexeeya dowladda Etoobiya iyo kooxda Tigray in ay ka dhacaan koonfur Afrika bishan Oktoobar 24-keeda, taasi oo la doonayo in lagu soo afjaro colaadda wakhtiga dheer qaadatay ee ka socoto gobolkaasi. warkan oo laga soo qaatay Ridwaan Xuseen oo ah la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha Etoobiya ayaa kusoo beegmaya maalmo un kadib markii dowladda federaalk ee Etoobiya ay sheegtay inay gacanta ku dhigeen 3 magaalo istiraatiiji ah oo ku yaala gobolka Tigray, sida magaalada Shiire oo ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee ku barakacay dagaalada ka socda gobolkaasi. maalmihii lasoo dhaafay waxaa diblomaasiyiintu ay ku boorinayeen dowladda Etoobiya iyo ciidamada Tigraygu inay isla meel dhigaan xabad joojin degdeg ah, iyada oo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu isniintii ka digay xaaladda ka jirta waqooyiga Etoobiya, isagoo ku tilmaamay in xaalad faraha ka sii baxayso. horaantii bishan waxaa guuldaraystay wadahadalada nabadeed oo uu garwanaan ka yahay midooda Afrika, kaasoo la filayay in ay ka dhacaan dalka koonfur Afrika. hase yeeshee labada dhinac ayaa ku heshin waayey arrimo ay ka mid yihiin dhinaca saadka. waan isku soo noqonaynaa. falanqayntii ayaa inoo sii soconaysa haddii abweyne raalli ka noqdo. dhanka caalamka ayaan eegaynaa qalalaasaha siyaasadeed iyo dhaqaalaha UK oo sii socda kadib iscasilaadii Liz Truss. ra-iisul wasaaraha Britain Liz Truss ay iscasishay kadib 45 maalmood oo ay xilkaasi haysay, waxaana ay iscasilaadan qalqal siyaasadeed ka bilowday Britain iyadoo muddo 4 bilood 2 ra-iisul wasaare xilka laga tuuray. waxaa bilaabanayaa tartan doorasho oo xisbiga gudihiisa. arrintaasina waa mid ka mid ah hadaladii ugu dambeeyey ee Britain waxyaabihii markaasi ka dambeeyey iscasilaadeedii. Truss ayaa waxaa la degay barnaamijkeeda dhaqaalaha kaasi oo muujado argagax u diray suuqyada dhaqaalaha, islamarkaana kala qeybiyey xisbiga Conservative-ka 6 toddobaad kadib markii xilka loo magacaabay. doorashada hoggaan cusub ayaa lagu soo gabagabayn doonaa toddobaad gudihiis, iyada oo ka hadlaysay dibadda xafiiska tobnaad Downing Street. iyo Truss waxa ay aqbashay in awoodii weysay inay kasoo baxdo ballanqaadyadii ay samaysay markii ay u tartamaysay hoggaanka Conservative-ka, iyada oo markaasi lumisay aaminaadda xisbigeeda. waxaan garowsanahay iyada oo la eegaya xaaladan inaan kasoo bixi waayo waajibaadkii la ii doortay uu ii doortay xisbiga Conservative-ka. sidaa daraaddeed waxaan la hadlay boqorka kuna wargeliyay inaan iska casilo hoggaanka xisbiga Conservative-ka bay tiri. saaka waxaan la kulmay bay tiri gudoomiyaha guddiga 1922 Sir Graham Brady. waxaan isku raacnay inay jiri doonto doorasho hoggaan cusub oo lagu dhammayn doono toddobaadka soo socda gudihiisa. tani waxay xaqiijin doontaa inaan ku taagnaano wadahadalada aanu kusoo gabagabeynayno qorshahayada dhaqaalaha, kuna joogteynayno xasiloonida dhaqaale iyo amniga qaranka dalkeena bay tiri. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Labour-ka ayaa dalbaday doorasho guud oo dalka ka dhacdo iminka. dhinaca kalena madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa saxiixay qorshaha madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee uu ku doonayo in Turkiga uu xarun noqdo gaaska dabiiciga ee Ruushka. Erdogan ayaa sheegay in Turkiga uu sugayay fursadan muhiimka, isagoo sheegay inuu ogolaaday qorshaha Putin. wadamada Yurub waxay hadda raadinayaan meel ay ka helayaan ama meel markaasi ay ka helayaan sahayda gaaska dabiiciga buu yiri madaxweynaha Turkiga. ilaahay mahadi Turkiga kama jirto dhibaatadaas oo kale. waxaan rajaynaynaa inaan dhowaan noqon doono xarun gaaska dabiiciga qaybisa. toddobaadkii hore Putin ayaa sheegay in gaaska dabiiciga loo wareejin doono dalka Turkiga, lagana bedeli doono dhuumaha shidaalka ee loo yaqaano Nord Stream ee dhexmara biyaha badda Baltiga ee u dhaxaysa dalalka Yurub iyo Ruushka, kuwaasi oo dhowaan ay waxyeeleynayeen qaraxyo loo geystay. Ruushka ayaa horey gaas tan u siin jiray dalka Turkiga, isagoo usii marin jiray dhuumaha shidaalka ee lagu magacaabo Tax Team, kuwaasoo hoos mara biyaha badda madow. laakiin Kremlin ayaa waxa ay qarateen dhuumaha shidaalka aanay ahayn awood ay ku qaataan gaaska dheeriga. haddaba macalin culumta siyaasadda iyo xidhiirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Istanbul ee Turkiga ayaa sheegay in muranka uu Ruushka awoodo inuu dalka Turkiga soo gaarsiiyo gaasta lagu heshiiyey inay suuragal tahay in xilligaasi ay Yurub ay heshay meel kale oo ay ka heli karto gaasta ay u baahan tahay. waxaan ula jeedaa bay tiri buu yiri yaa iibsanaya gaastaasi.
waxaanu leenahay run ahaantii haddii ay reer yurub diidaan inay iibsadaan gaastan yaa kaloo iibsanayaa haddaba yuu turkiga xarun u noqon doonaa sax yaa noqon doonaa buu yidhi meesha ay gaasta u socoto taasi oo qodobka aanu weli fahmin buu yidhi hindisaha putin ayuu kusoo beegmaya xilli ay ankara isku dayeyso inay isku dhigto ama ay isu dhigto aan yiraahda beddelka tamarta ruushka ee dalka yurub dalalka yurub sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyada dalkaasi turkiga guud ahaana